dalkani dowladdii waa in looga dambeeyaa wixii dowladda leedahay dowlad oo mucaarad lahaynna dowladdaasna waa dowlad butinayso haddana waxaa la rabaa mucaaradkeeni qaar badan markaad aragtid isheel siyaasadeed ma laha marka wallay waxaan rajeynayaa dal walba wuxuu u baahan yahay dowlad shaqaysa oo wax maamusha iyo mucaarad oo hamigiisa yahay dowladdaasi inuu bedelo oo ka shaqeeyo isagoo ka baxaynin xeyndaadka sharciga dalka u yaal marka aniga marnaba ma taageerayay mana qarsanayay inuu runtiisa iska sheegana waana nimankan oo kale hadda u sacbinayay aadan bare ducaale aniga nimankaas oo kale mucaarad uma arka waxaan u arkaa niman isceebeeyey dalkoodii madaxdoodii qarankoodiina ceebeeyey sidaas daraaddeeda noocaas oo mucaarada aniga uma helin karo umala arko mucaarad inay yihiin wax kalena kuma tilmaamayo laakiin mucaarad dalku uu u baahan yahay mucaarad nidaamsan xeyndaadka sharciga u yaalo ku shaqeeyo dowladna waxaa laga rabaa xukuumadda soomaaliyeedna waxaa laga rabaa iyadana mucaaradka xaq bay ku leeyihiin dalka su-aale inay ka keenaan inay talo ka keenaan waxa iyada u gaaray leedahay ma aha meeshaani waa la wada leeyahay mucaaradkana oo saliimka ah oo nadiifka ah oo qarannimada dhowrayana waxaa laga rabaa xukuumadda inay la tashato tashi kala yeelato wixii masiiriga ah nolol maalmeedka xukuumadda iyada u madax banaan cidno in lagu soo farageliyana waa qalad laakiin wixii masiiriga ah waxa weeye waa waajib inay mucaaradka kala tashato mucaaradkana xaqay u leeyihiin in si asturan oo xeyndaadka sharciga ka baxsaneen talooyin dowladda soo jeediyaan ujeedda waa in ixtiraam labada dhinac inuu ka dhexeeyo oo sijiid iyo looma baahna marka walaalle waa kaasaa adigu ma la dhacsan tahay ama ma taageersan tahay hanaanka dowladda dhexe iminka ay dalka ku hogaaminayso marka aad fiiriso waxyaabaha muddadii ay jirtay ay qabatay waxyaabo badan ay qaaday oo aysan qabanin waan ku jawaabay annaga xukuumadda soomaaliyeed wixii wanaaga dalka qabanayso waa soo dhaweyneynaa waanu u sacbinaynaa wixii qalad aan ku aragnana waanu sheegaynaa wadadaas inaysan habbooneyn loo baahan in laga fiirsado xukuumad diidaysona taasna xukuumad oo aayaheeda si gabaarsi aaweye sii socdo ma garatay xukuumadda soomaaliyeed annaga waan taageersannahay 100% baan taageersannahay hase yeeshee ururo xisbiyo iyo waxaas aniga kamid mihi insha allah nin xoraan iska ahay galbeed waxay dhahaan independent xukuumaddeeda waan jecelahay diyaaraan inaan la shaqeeyo mucaaradkana wixii iga mudan tixgelin oo xeyndaadka sharciga ka baxsaneen ku dhaqmaayana waan taageerayaa waana u sacbinaya laakiin nimankii qarannimadoodii dalkoodii iyo nin sida ninka hadda ii sheegaya magaciisa maraynaa ku celiyo oo madaxdeena u gafay oo qarannimadeena u gafay oo baddeena u gafay oo asagoo welina asalkiisa soomaali ah in loo sacbiyo waxaasoo kale nimankii u sacbiyey sharaf ma laha intaasaan idin leehay gabagabadii fariintaada ugu dambaysa aad u dirayso bulshada reer galmudug maxay tahay aniga bulshada reer galmudug waxaan u baaqayaa marka ugu horeyso idaacaddan meel kastay gaarto aan rajeynaya inay gaarto cadaad inay gaarto dhulsooneed inay gaarto meeshaan galmudug cusub baan u baahannahay galmudug aan wada leenna aan u baahannahay reer gaara lahayn oo khayraadkiisii iyo wixiisii aan soo saarano oo dekadihiisii aan dhisano dad hobyo un baa laleeyahay annaga waxaa rabnaa mareegna inaan dekada dhisnano waa rabnaa maxaa yeelay dadka ha tartamaan dadka ha tartamaan baanu leenahay si nadiifa ku tartamaan marka waxaan leeyahay marka midnimadooda inay dhowraan wax wadaaga iyo wax qaybsiga hala adkeeyo iyo tashiga meeshaan waa wada leenahay niyadda in la gashto weeye inaan wada leenahay olo gaaraan madaxay waa intaas weeye aniga fariinteyda inay soo saaraan aan rajeynaya hoggaan fiican ku taliya oo wax fiican ka qabta 4 sano soo socdo oo ka tallaabsiiya awood qaybsiga qabaaliga dalkan uma roona galmudugna uma roona waxaan rabnaa doorashada soo socota galmudug inaan gaarsiino in xisbiyo isku doorto ma garatay xisbiyadaasan markaasoo deegaankan ugu xoog bato waa arki doonaa laakiin hamigeena waa intaas waxaan rabnaa golayaasha deegaanka in la doorto in far lagu fiiqo hebel baa duq magaalo ah
inaan ka gudubnaa rabnaa waxaasoo dhan baa rabnaa inaan dimuqraasiyad u keenno dadka ayahooda ayaga gacantooda ku qabsadaan dad ayaga rabaan u taliyo oo dad la xisaabtan karo xisaabtami karo meesha uu joogaa oo meelo kale laga soo magacaabay marka waxaan rajeynayaa galmudug doorashadan soo socoto odayaasha dhaqanka xildhibaanada lasoo xulayo kulligooda niyadda inay intaas ku hayaan ay soo saaraan dad wax ka bedeli kara xaaladda galmudug maanta lagu sugan yahay oo u keeni karo rajo iyo barwaaqo intaasa aniga kusoo gabagaynaya هذا أمها سنتهي حسن محمد سعيد سمتر حسن Gacaliye مشرح مدحوينه كحجينك معمول كجلمدوك أو رميي ورباهين الراديو أولل أيوكاسي